نبري هذا بديس هاي بديس ايه ما له عايزين ده ورا من خربان شنو والله ما دوي مقاس ما دوي ولا قرابه انا بقول ما هو قاعد ما هو قاعد لكن والله ولا حركات لا هو باورتا السعودة مكان ولا ينسير سوا شرف الجيدي سامانيس على رئيسه قالوا مال صار اللي قال لك صار زيد هذا وضع فر وضع فر صار هذه يلا تقعد ديري كون بيت الحين ارجع حاكم كون بيت الحين سبح سبح كون بيت الحين هكا هذا كون بيت الحين وديها استبد خالص بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرحة وين أيتها مركل أنا ندرك كسر لابتو وحن ربعنا ما عليو سنة الرضا اللي بعنا ذا وزير هذا بالشدة قيبة ذا كل الدوان صحافة ذا سود وينتا مسؤولية ذا يقول سود وين آدي هذا نقوم هذا عليها انت اسكدب وحاول اكتهم waxaan sugaynaa insha Allah in doorashooyinka qabsoomaan waxaan aad u soo dhaweynaa qabsoomida kulamada golaha baarlamaanka waxaan rajaynayaa golaha sanadkan ayagana sidaas oo kale inay mataqaanaa kulamadooda ay suura galaan waxaan wada ognahay marxaladda dalku maanta uu maraayo inay u baahan tahay qof kasta oo Soomaaliya inuu bixiyo dadaal lagu samata bixinayo dadka iyo dalka Soomaaliya waa mas'uuliyad culus
laakiin haddana waa lagama maarmaan in loo istaago si wax loo badbaadiyo. waa ogtihiin 4 sano ka hor meesha wax joogeen iyo maanta meesha ay wax joogaan waxaan filaynay annagoo dhan ama Soomaalidoo dhan in runtii isbeddel macna leh oo kii ay ku taamayeen ummadda Soomaaliyeed iyo dadka jecelba oo dhaco, laakiin waxaa dhacday cagsi. waxaan aaminsanahay meesha la joogo maanta waa laga dambeeyaa dhinac walba, siyaasad, dhaqaale, amni, arrimo bulsho. shacabka Soomaaliyeed waa shacab duruuf adag ku soo jiray. qof kastoo u istaaga inuu qaado mas'uuliyaddaas waa lagama maarmaan inuu ka fikiro mas'uuliyadda oo qaaday mugga ay leedahay. dowladnimaduna waa wax la wada leeyahay oo qof la arkaba uu ka leeyahay meel uu ka howlgalo. laakiin cidda mas'uuliyadda qaaday waxaa saaran hogaamin toosan, waxaa saaran ummadda inay u adeegto, waxaa saaran inay ka fikirto mas'uuliyadda la saaray maanta iyo berritaba. berri waxaan u wadnaa maalinka aakhirada, ilaa annaga muslimiinana waxaan rumaysannahay in xisaab ay jirto. doorashadii 4 sano ka hor dhacday magaaladan amnigeeda waa ka warhaysiin, nolosheeda waa ka warhaysiin, waa ka warhaysiin himilada shacabka Soomaaliyeed iyo diilada ay qabeen xilligaas iyo sida aragtidu ay u midaysnayd. maantana waxaa la socotiin dhammaantiin amnigu meesha uu joogo, siyaasaddu meesha ay joogto, arrimaha bulshada, dhaqaalaha. waxaan isleeyahay marka waa lagama maarmaan in loo istaago mar kale in dalka hoggaankiisa la qabto, lana xaqiijiyo himilada shacabka Soomaaliyeed. hadday naqayso dhinaca amniga, hadday naqayso dhinaca siyaasadda, hadday naqayso dhinaca maamulka, hadday naqayso dhinaca horumarka. maxaa yeelay waxaana ummadaha kale waxa ay gaareen ama ay higsanayaan xaq u leh. haddaan ka soo qaadanno ciidamada qaranka, waxaan aaminsanahay aniga si ku talagala in loo kala daadiyey. dhinaca dhaqaalaha waxaan aaminsanahay si ku takrifal ah oo ku talagal ah in madaxda qaranku ay u dhunsadeen, ummaddana dhuunta ay uga qabteen si ay u fududaato dadka inay xukumaan. waxaa jirta maahmaahyo la yidhaah oo carabtu ay leeyihiin eygaaga gaajaysi ha ku raacay. marka aniga waxaan aaminsanahay 4 sano la soo dhaafay dowladda siyaasaddeedu taasi ku wajahneed. waxaana ka garan kartaa sida ay u maamuleen doorashooyinka xildhibaanada iyo senatarada. waxaa la gaarsiiyey fasaadka ama corruptionka tuulooyinka iyo baadiyaha la gaarsiiyey. maxaa u malaynaysaa dal faqri ah oo ay tahay inuu soo kabto marka waxa kaliya oo ay ka fikiraan laga dhigo lacag ay qaataan oo damiirkooda iyo codkooda la iibsado? maxaa u malaynaysaa meesha uu gaari karo? horumarka ay gaari karaan muxuu noqon karaa? intaas waxaa sii dheer sida la isugu diray dadka. maxaa yeelay dowladnimadu waa dad heshiisa oo higsanaya ujeedooyin midaysan oo ay leeyihiin. afkaartaas guraacan intaas kaliya kuma eka ee waa ka sii dheerta. waxyaabaha lagu fashilmay waxaa ka mid ah dowladda mas'uuliyaadka ay qaaday oo laga sugayo waxaa ka mid ah dastuurka in la dhammaystiro. dastuurka in la dhammaystiro waa shay sahlan, aad u fudud oo laga shaqayn karo, waxba lagama qabanin. waxaan leeyahay ujeeddaa loo sameeyey. maxaa yeelay dastuur haddii la sameeyo waxaa imaanaysa in loo hoggaansamo, sharci haddii la sameeyo in loo hoggaansamo. dowladdan waxay ku caanbaxday inay sharciga garab marto. dowladdan waxay ku caanbaxday inay gaboodfal ku talagala samayso. marka danteeda ma aha inay sharci samayso. dalkaana waxa uu ku jiri karaa waa sharci iyo kala dambeyn. maxaa naga dhexeeya? waxaa naga dhexeeya dalka maxaan ku wada lahaa karnaa sharci. sidaas oo kale in la dhammaystiro mas-uuliyadda labaad waxay maamulada in la dhammaystiro. maamulada la sameeyey waxaa wada ogtiin sida loo sameeyey, mid kastaba sida uu ku samaysmo. kulligooda waxaa lagu beesgareeyey inuu ku samaysmo danaha ayagu ay leeyihiin. waxaa la abuuray
conflict iyo isku dhacyo dhex mara dawladda dhexe iyo gobollada laga samaynayo maamulada. waxaan ka soo qaadanaynaa gobolka hadda noogu dhow koonfur galbeed. dad xoogaal aniga waxay ii sheegeen in la yidhi 2 gobol aan dhisaynaa, waad ogtiin sheekadaas aan u malaynaa. waxaan isku dhisaynaa 2 shabeelle, guddigaa loo saaray. kuwa kale waa loo yeeray, waxaa la yidhi 3 gobol soo diyaariye. kuwa kale waxaa la yidhi 6 gobol soo diyaariye. macnaheedu muxuu yahay taas? macnaheedu waxa waaye dadku inay madaxa isla galaan, markay isku daalaanna wixii la rabo laga sameeyo. jubbooyinka waxaa dagaal ka dhacay, dadaa ku dhintay. waxaan u maleynayaa 100 iyo googo qofaa ku dhimatay. dawladdu inay ka shaqayso dadku inay isdilaan waa arrin sharciga khilaafsan, waa arrin dembi ah oo ay ahayd in lagu xisaabiyo. dadkan waxay ahayd in la heshiisiyo, la isu soo dhaweeyo, la isku soo jiido, maamulna loo sameeyo. maamul kasta oo la sameeyana waxaa laga lahay dana noocaas. marka waxaa loo sameeyey si loogu adeegsado danaha laga leeyahay. marka aan soo qaadano 1 man 1 vote oo ayadan ahayd mas-uuliyadda saddexaad oo la rabo dalka inay gaarsiiso dawladda. doorashada waxay ka dhacaysaa meesha shalay ka dhacday, iyadoo amnigu meesha uu ka liito, duruufta dhaqaale meesha uu ka liidato, conflict dadka uu ku dhex jiro caloosha aysan saafi ahayn. ayadana waxaa leenahay si ula kacaha loo sameeyo. maxaa yeelay dadka marka la qaybiyo waxaa fududaanaysa inaad qof u xukuntid. waxaa laga yaabaa dad badan inaysan sidaas u fiirin, laakiin aniga waxaan leeyahay waxaan oo dhan waa ku talagal. qofka haddii niyaddiisu wanaagsan tahay laakiin wax ka xumaadaan waa la garan karaa. laakiin marka uu sameeyo wax kastaba si ku talagala waa arrin khatara. arrinta kale oo aan raba farta inaan ku fiiqo waa xiriirka arrimaha dibadda oo mar walba dawladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliya aad muhiim uga. annaga waxaan nahay dal aan isku filnayn weli, ku tiirsan kaalmada dibadda. taas waxay naga rabtaa marka inay timaado calaaqaad wanaagsan dawladaha dariska ka bilaaw kuwa daneeya Soomaaliya. calaaqaadkaasu maanta meesha uu joogo waa aragtay. maxay u dhacaysaa waxaas oo dhan? waxay u dhacaysaa gruubkan meesha jooga dantooda wixii aan ahayn inay bannaanka iska dhigaan, kama fikirayaan. calaaqaadka hadduu xumaado qofka ajnabiga kama fikiraayo. waxaa samaysay madaxda dawladda, shacabku lama qabaan. dawladda in badan oo ka mid inay la qabanaa dhici karta, lagama fikirin waxaas oo dhan. caqabaadkaas la abuuray waxaa loo abuuray in dhinacna laga muujiyo in dal xura la yahay oo go-aan leh, oo dadka aan aad uga taxadiraynin arrimahaas sidaas loo garansiiyo. dhinaca kalena wax kasta oo hor istaagi kara danahooda inay iska fogeeyaan, ay ka fogeeyaan. waxaan soo dhaweynaa mar kale inay maanta noo jiraan 2 gole. waxa sharciga maanta oo la soo doortay waa 2 gole. waxaan rabaa marka inaan fariinteeda u gudbiyo. waxaan rabaa inaan idhaa mas-uuliyad weyn aad saaran oo taariikhiya maanta. waa arkaysiin maanta xaalad dalku meesha ay marayso dhinac walba, dhinac siyaasadeed, dhinac amni, dhinac mataqaanaa bulsho, dhinac mataqaanaa dhaqaale. haddii aadan doorana cid daacadka ah, niyad u haysa inay wax qabato, u istaagaysa inay dalka midayso, dana aan ka lahayn, kursiga aan ahayn, shaqada loo wakiisho inay qabato, dalku wuxuu aadayaa meeshaa meel ka liidata. haddii aad u jilacdiin handadaadda iyo is-hortaagga iyo dhaqaalaha ummadda ee la dhacay aad u hanqaltaagtiinna, ayadana waxaa imaanaysa khatar. waxayna keeni kartaa qof walba dhibku inuu soo gaaro. waa mas-uuliyad adduunyo, waa mas-uuliyad aakhira. marka waxaa leenahay codkiina geeya meel saxa. maanta dalkan inuu badbaado iyo inuu meel kale aado, laa qadar allah, codkiina ku xiranta. ha ka fikirin maslaxadaada gaarka ah, ka fikir maslaxada qaranka, maslaxada shacabka Soomaaliyeed, maslaxada dawladda Soomaaliyeed ka fikir. maalin taariikhi ay ku tahay
inaad garato mas-uuliyaddaas waa arrin muhiima. waxaan rabaa inaan idiin sheego fursadaha ay heshay dowladdan oo ay beerdaraysay. waxay heshay ixtiraaf buuxa, waxay heshay dhaqaale, waxay heshay isgarab istaag dhab ah oo adduunka u garab istaago, waxay heshay rabitaan shacab Soomaaliyeed oo diyaar ah dowladooda inay dhageystaan. maxaa ka nool inta adinka idin weydiinaa maanta? waxna kama nool. waxaasoo dhanna waxay u dhaceen si ku talagal ah, si loo xaqiijiyo danaha gaarka ayagu ay leeyihiin. waxaan rabaa marka inaan weydiiyo shacabka Soomaaliyeed su'aal. dowlad kalitalisa oo ka fikirta danteeda wax qaba karin munaasab ma tahay 27 sano kadib inaan aqbalno annagoo og dowlad 21 sano jirta oo military ah waxa kaliya oo aan ku riixayna inay ahaayeen inay ahaado dowlad kalitalisa? jawaabtu waa cadda waa maya. haddaba maxay tahay dariiqa wanaagsan oo laga bixi karo? qof kasta oo Soomaaliya xildhibaanada jooga ama mid uu qaraabo leeyahay ama mid uu saaxiib leeyahay inuu codkiisa gudbiyo, inuu waaniyo, inuu caqli celiyo, inuu dhiirigeliyo, inuu u sheego codkiisa macnaha ugu fadhiyo ummadda Soomaaliyeed maanta. gabagabadii guul iyo guul daro waxaa ka horeeya rabitaan. ani waxaan aaminsanahay madaxda qaranka maanta joogta ee xilku ka dhamaaday asal ahaanba uma diyaarsaneen inay gutaan waajibkooda ee waxay lahaayeen dana kale, niyaddooda wax kale ku wajahneed. taas ayaana keenta maanta meesha la joogo. kulligeenna qof khibrad gaara u leh dowladnimo naguma jirin, laakiin haddana waa la dadaalay. falilaahi alxamdu. bani aadamka khalad iyo saxba waa leeyahay, laakiin meel macno leh oo Soomaali isugu timiday yaa la isugu keenay. waxyaabaha aan la yaabo waxaa ka mid ah wixii la soo qabtay dowladdu inay mar walba inkiraysay, dhehaysa meel eber aan ka soo bilaabno. waxaa loo dhiibay ciidan kala duwan, ciidan military, boolis, nabad sugid iyo usluub. waxaa loo dhiibay magaalo shaqaynaysa oo garoonkeedu furan yahay, oo dekedeedu furan tahay, oo jidadkeedu furan yihiin. waxaa loo dhiibay ummad Soomaaliyeed oo gacmaha is haysata. waxaa loo dhiibay yacni dhaqaale intuu rabaa la ekaadee dadka inay waxun soo golayaan nolol ay jirto. waxaasoo dhan dowladdu waxay isku dayday inay dafarto. su-aasha marka waxay tahay, haddaad ziira ka timiday bal noo sharax ziirada saa uga timid. waxaa la isu keenay halkan ergey, waxaa la ansixiyey dastuur, waxaa la doortay xildhibaano, xildhibaanadii yaa ku doortay. waxaan rabaa inaan idiin sheego dowladihii Soomaaliya ee lasoo dooranayay dowladda Siyaad Barre markay burburtay kadib 2000 dowladda ku meel gaarka ahayd Cabdiqaasim waxaa lagu doortay Djibouti. 2004 dowladda ku meel gaarka ahayd Cabdullaahi Yuusuf hogaaminaya waxaa lagu doortay Imbagati. 2009 dowladdii aniga aan hogaaminaya waxaa lagu doortay Djibouti mar kale. 2012 dowladda madaxweyne xasan sheekh oo hogaaminaya waxaa lagu doortay magaalada Muqdisho. soo dowladda magaalada Muqdisho lagu doortay inay tiraa meel eber aan wax ka bilawnay gar ma noqonaysaa? maya. طيب aan u laabano qiimeyn, dhaqaalaha aan fiirino, amniga aan fiirino, arrimaha bulshada aan fiirino, siyaasadda aan fiirino. meesha shalay wax joogeen iyo maanta meesha wax joogaan yaa roon. waxaan aaminsanahay shalay roon. horumarkii 4 la sunaayay 4 sano la sugay lama arkin. marka waxaan leeyahay waxay ahayd in la yiraahdo doorasho ma gali kartiin. dambiilayaal tihiin, ummadii khiyaanteen, antida dadka aad dhunsateen. maxay la doorashada lacagta lagu galay xagee ka timiday? xagee ka timid lacagtaas? ma hore loo hayay? maya. xagee ka timid? ama waxay ka timid magaca shacabka Soomaaliyeed, ama wax aad wada ogtihiin oo la dhunsaday dhulka dawladda la wada iibsaday, wax la ogyahay waxaan la ogeyn. waxay la tahay marka inay tahay marxalad muhiim ah inaanu istaagno dalkeenna mar kale inaan hanano, annagoo rabsho samaynaynin, inaan ku raadino dariiqa saxda ah dimuqraadiyadda. waana tan aan filayno inay u dhacdo sida wanaagsan ee shacabka Soomaaliyeed ay filayaan inay u dhacdo. mar kale waxaan rajo weyn ka qabaa inaan mas'uuliyadda hoggaanka dalka ku guuleysto si
aan ugu celiyo khadkii ay ku socotay ee ahaa in la higsado himilada shacabka Soomaaliyeed in la mideeyo shacabka Soomaaliyeed la isu soo dhaweeyo in la dhiso ciidamada dawladda ama hay'adaha dawladda dhamaantood ha noqdaano kuwa amniga garsoorka iyo maamulka in la hagaajiyo calaaqaadka u dhaxeeya shacabka Soomaaliyeed dhamaantood ama ha noqdaano gobollo ama ha noqdaano qabaa'il waxa ugu horeeyaan sameey doona insha Allah waxay noqon doonaan dib u heshiisiin dadku ay niyadda isu furaan si dhab ugu wada hadlaan wixii soo dhacay waxaan ka shaqeyn doonaa Ilaahay idankiisa hay'adaha dawladda in sida ugu wanaagsan loo dhiso waxaan ka shaqeyn doonaa in dalkan la keeno shirkada maalgashada si shacabka Soomaaliyeed loogu abuuro shaqo waxaan ka shaqeyn doonaa in kor loo qaado aqoonta iyo waxbarashada shacab hadaa rabtid inaad bedeshid waa inaad wax ka bedeshaa aqoonta waa in la baahiyo aqoonta qof kasta oo Soomaaliya waa inuu helaa aqoonta oo xaq u leeyahay ugu yaraan dugsi hoose iyo dugsi dhexe waa inay noqdaan lacag la'aan waana wax la sameyn karo in dib loo dhiso jidadkii korontadii biyihii waa in la helaa waa qofku xaq u leeyahay oo ka maarmi karin qaybna ka ah horumarka dalka waxyaabahaas oo idin waxaan fursad u helnay inaan jawi degan uga soo fikirno oo soo diyaar garowno maxaa yeelay markuu qofku xafiiska fadhiisto waa adagtaa inuu ka fikiro waxyaabaha istaraatiijiga waxaan rajaynayaa qof kasta oo Soomaali ah gaar ahaan xildhibaanada iyo senatarada inay gacan ugu soo sii doonaan waa mahadsantiin wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh amnigeeda waa ka warhaysiin nolosheeda waa ka warhaysiin himilada shacabka Soomaaliyeed iyo diilada ay qabeen xilligaas iyo sida aragtidu ay u midaysay maantana waxaa la socotiin dhamaantiin amnigu meesha uu joogo siyaasaddu meesha ay joogto arrimaha bulshada dhaqaalaha waxaan isleeyahay marka waa laga maarmaan in loo istaago mar kale in dalka hoggaankiisa la qabto lana xaqiijiyo himilada shacabka Soomaaliyeed hadday noqoyso dhinaca amniga hadday noqoyso dhinaca siyaasadda hadday noqoyso dhinaca maamulka hadday noqoyso dhinaca horumarka maxaa yeelay waxaana ummadaha kale waxa ay gaareen ama ay higsanayaan xaq u leh dan ka soo qaadano ciidamada qaranka waxaan aaminsanahay aniga si ku talagala in loo kala daadiyay dhinaca dhaqaalaha waxaan aaminsanahay si ku takrifal ah oo ku talagal ah in madaxda qaranku ay u dhunsadeen ummadana dhuunta ay uga qabteen si ay u fududaato dadka inay xukumaan waxaa jirta maahmaahyo la yiraa oo carabtu ay leeyihiin eygaaga gaajaysi ha ku raacay marka aniga waxaan aaminsanahay 4 sano la soo dhaafay dawladda siyaasadeedu taasi ku wajahneed waxaana ka garan kartaa sida ay u maamuleen doorashooyinka xildhibaanada iyo senatarada waxaa la gaarsiiyay fasaadka ama corruptionka tuulooyinka iyo baadiyaha la gaarsiiyay maxaa u malaynaysaa dal faqri ah oo ay tahay inuu soo kabto marka waxa kaliya oo ay ka fikiraan laga dhigo lacag ay qaataan oo damiirkooda iyo codkooda la iibsado maxaa u malaynaysaa meesha uu gaari karo horumarka ay gaari karaan maxuu noqon karaa intaas waxaa sii dheer sida la isugu diray dadka maxaa yeelay dawladnimadu waa dad heshiisa oo higsanaya ujeedooyin midaysan oo ay leeyihiin afkaartaas guraacan intaas kaliya kuma eka waa ka sii dheerta waxyaabaha lagu fashilmay waxaa ka mid ah dawladda mas'uuliyaadka ay qaaday oo laga sugayo waxaa ka mid ah dastuurka in la dhameystiro dastuurka in la dhameystiro waa shay sahlan aad u fudud oo laga shaqeyn karo waxba lagama qabanin waxaan leeyahay ujeedada loo sameeyay maxaa yeelay dastuur haddii la sameeyo waxaa imaanaysa in loo hoggaansamo sharci haddii la sameeyo in loo hoggaansamo dawladdan waxay ku caanbaxday inay sharciga garab marto dawladdan waxay ku caanbaxday inay gaboodfal ku talagala samayso marka danteeda ma aha inay sharci samayso dalkaana waxa uu ku jiri karaa waa sharci iyo kala dambeyn maxaa naga dhaxeeya waxaa naga dhaxeeya dalka maxaan ku wada lahaa karnaa sharci sidaas oo kale in la dhameystiro mas'uuliyadda labaad waxay maamulada in la dhameystiro maamulada la sameeyay waxa wada ogtiin sida loo sameeyay mid kastaba sida uu ku sameysmay
kulligooda waxaa lagu beesgareeyay inuu ku samaysmo danaha ayagu ay leeyihiin waxaa la abuuray conflict iyo isku dhacyo dhex mara dawladda dhexe iyo gobollada laga samaynayo maamulada waxaan ka soo qaadanaynaa gobolka hadda noogu dhow koonfur galbeed dad xoogaal aniga waxay ii sheegeen in la yidhi 2 gobol aan dhisaynaa bawaad ogtiin shakadaas aan u malaynaa waxaan isku dhisaynaa 2 shabeelle guddiyaa loo saaray kuwa kale waa loo yeeray waxaa la yidhi 3 gobol soo diyaariye kuwa kale waxaa la yidhi 6 gobol soo diyaariye macnaheedu muxuu yahay taas macnaheedu waxa waaye dadku inay madaxa isla galaan markay isku daalaanna wixii la rabo laga sameeyo jubbooyinka waxa dagaal ka dhacay dad ku dhintay waxaan u maleynayaa 100 iyo googo qof ku dhimatay dawladdu inay ka shaqeyso dadku inay isdilaan waa arrin sharciga khilaafsan waa arrin dembi ah oo ay ahayd in lagu xisaabiyo dadkan waxay ahayd in la heshiisiyo la isu soo dhaweeyo la isku soo jiido maamulna loo sameeyo maamul kasta oo la sameeyana waxa laga lahay dana noocaas marka waxaa loo sameeyay si loogu adeegsado danaha laga leeyahay marka aan soo qaadano one man one vote oo ayadan aad mas'uuliyadda saddexaad oo la rabo dalka inay gaarsiiso dawladda doorashadu waxay ka dhacaysaa meesha ay ka dhacday ayadoo amnigu meesha uu ka liito duruufta dhaqaale meesha uu ka liidato conflict dadka uu ku dhex jiro caloosha aysan saafi ahayn ayadana waxaa leenahay si uu la kacaha loo sameeyo maxaa yeelay dadka marka la qaybiyo waxaa fududaanaysa inaa qof u xukuntid waxaa laga yaabaa dad badan inaysan sidaas u fiirin laakiin aniga waxaan leeyahay waxaan oo dhan waa ku talagal qofka haddii niyadiisu wanaagsan tahay laakiin wax ka xumaadaan waa la garan karaa laakiin marka uu sameeyo wax kastaba si ku talagala waa arrin khatar ah arrinta kale aan raba farta inaan ku fiiqo waa xiriirka arrimaha dibadda oo mar walba dawladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliya aad muhiim uga annaga waxaan nahay dal aan isku filnayn wali ku tiirsan kaalmada dibadda taas waxay naga rabtaa marka inay timaado calaaqaad wanaagsan dawladaha dariska ka bilaaw kuwa daneeya Soomaaliya calaaqaadkaas maanta meesha uu joogo aragtay maxay u dhacaysaa waxa soo dhan waxay u dhacaysaa groupkan meesha jooga dantooda wixii aan ahayn inay banaanka iska dhigaan kama fikirayaan calaaqaadka dad xumaado qofka ajnabiga kama fikiraayo waxaa samaysay madaxda dawladda shacabku lama qabaan dawladda in badan oo kamid inay la qabana dhici karta lagama fikirin waxa soo dhan caqabaadkaas la abuuray waxa loo abuuray in dhinacna laga muujiyo in dal xura la yahay oo go'aan leh oo dadka aan aad uga taxadirin arrimahaas sidaas loo garansiiyo dhinaca kalena wax kasta oo hor istaagi kara danahooda inay iska fogeeyaan ay ka fogeeyaan waxaan soo dhaweynaa mar kale inay بعرض السعادة مكان ولا ينتهي
Somal News. على Raiso. Ya. Mal. صار اللي قال لك صار زيد عليه وضع فر وضع فر صار اللي يلا تقعد ديري كم فيت الحين عندي حق كم فيت الحين سبح كم فيت الحين ما حد حق كم فيت الحين وياه استبدل فرض بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرحد وين أيتها مركل أنا ندرك كسر لابتو وحن ربعنا ما عليو سنة الرضا حق لبعنا ذا وزير ذا بالشدة قيبة ذا كل الدوان صحافة ذا سور دوين تا مسؤولية ذا له هيجو سور دوين آدي هذا نقوم هذا عليها. أنت أسكدي وحاول أكتهم وحن سوقينا إن شاء الله إن دورشون كقبصمان وحن آدي سور دوينا قبصوميدا كل ماذا قالها برلمانك وحن رجينا قالها سنة كان يجينا سدا سوق لأني مثلا كل ماذا ده يسورة قلنا وحن وذا أجنا هاي مرحلة دلكم maanta oo maraayo inay u baahan tahay qof kasta oo Soomaaliya inuu bixiyo dadaal lagu samata bixinayo dadka iyo dalka Soomaaliya waa mas'uuliyad culus laakiin hadana waa laga maarmaan in loo istaago si wax loo badbaadiyo waa ogtihiin 4 sano ka hor meesha wax joogeen iyo maanta meesha ay wax joogaan waxaan filaynay anagoo dhan ama Soomaalida oo dhan in runtii isbedel macna leh oo kii ay ku taamayeen ummadda Soomaaliyeed iyo dadka jecelba oo dhaco laakiin waxa dhacday cagsi in waxaan aaminsanahay meesha la joogo maanta waa laga dambeeyaa dhinac walba siyaasad dhaqaale amni arrimo bulsho shacabka Soomaaliyeed waa shacab ظروف adag ku soo jiray qof kasto uu istaaga inuu qaado mas'uuliyadaas waa laga maarmaan inuu ka fikiro mas'uuliyadda qaaday mugga ay leedahay dawladnimaduna waa wax wada la wada leeyahay
oo qof la arkaba uu ka leeyahay meel uu ka howlgalo laakiin cidda mas'uuliyadda qaaday waxaa saaran hogaamin toosan waxaa saaran ummadda inay u adeegto waxaa saaran inay ka fikirto mas'uuliyadda la saaray maanta iyo berritaba berri waxaan u wadnaa maalinka aakhirada ilaa annaga muslimiinana waxaan rumaysannahay in xisaab ay jirto doorashadii 4 sano ka hor dhacday magaalada ay maanta noo jiraan labadii gole waxaa sharciga maanta oo la soo doortay waa labadii gole waxaan rabaa marka inaan fariinteeda u gudbiyo waxaan rabaa inaan idhaa mas'uuliyad weyn aad saaran oo taariikhiya maanta waa arkaysiin maanta xaalad dalku meesha ay marayso dhinac walba dhinac siyaasadeed dhinac amni dhinac mataqaanaa bulsho dhinac mataqaanaa dhaqaale haddii aadan doorana cid daacad ka ah niyad u haysa inay wax qabato u istaagaysa inay dalka midayso dana aan ka lahayn kursiga aan ahayn shaqada loo wakiisho inay qabato dalku wuxuu aadayaa meesha meel ka liidata haddii aad u jilacdiin handadaadda iyo is-hortaagga iyo dhaqaalaha ummadda ee la dhacay aad u hanqaltaagtiinna iyadana waxaa imaanaysa khatar waxayna keeni kartaa qof walba dhibku inuu soo gaaro waa mas-uuliyad adduunyo waa mas-uuliyad aakhira marka waxaa leenahay codkiina geeya meel saxa maanta dalkan inuu badbaado iyo inuu meel kale aado laa qadar allah codkiina ku xiranta ha ka fikirin maslaxadaada gaarka ha ka fikirin maslaxada qaranka maslaxada shacabka Soomaaliyeed maslaxada dawladda Soomaaliyeed ka fikir maalin taariikhi ku tahay inaad garato mas'uuliyadaas waa arrin muhiim ah waxaan rabaa inaan idin sheego fursadaha ay heshay dawladdan oo ay beer darayso waxay heshay ixtiraaf buuxa waxay heshay dhaqaale waxay heshay isgarab istaag dhab ah oo adduunka u garab istaago waxay heshay rabitaan shacab Soomaaliyeed oo diyaar ah dawladooda inay dhageystaan maxaa ka nool inta adinka idin weydiinaa maanta waxna kama nool waxaasoo dhanna waxay u dhaceen si ku talagal ah si loo xaqiijiyo danaha gaarka ayagu ay leeyihiin waxaan rabaa marka inaan weydiiyo shacabka Soomaaliyeed su'aal dawlad kali talisa oo ka fikirta danteeda wax qaba karin munaasab ma tahay 27 sano kadib inaan aqbalno annagoo og dawlad 21 sano jirta oo military ah waxa kaliya oo aan ku riixayn inay ahaayeen inay ahaado dawlad kali talisa jawaabtu waa cadda waa maya haddaba maxay tahay dariiqa wanaagsan oo laga bixi karo qof kasta oo Soomaaliya xildhibaanada jooga ama mid uu qaraabo leeyahay ama mid uu saaxiib leeyahay inuu codkiisa gudbiyo inuu waaniyo inuu aqli celiyo inuu dhiirigeliyo inuu u sheego codkiisa macnaha ugu fadhiyo ummadda Soomaaliyeed maanta gabagabadii guul iyo guul daro waxaa ka horeeya rabitaan ani waxaan aaminsanahay madaxda qaranka maanta joogto ay xilku ka dhamaaday asal ahaanba uma diyaarsaneen inay gutaan waajibkooda ee waxay lahaayeen dana kale niyadooda wax kale ku wajahneed taas ayaana keenta maanta meesha la joogo kulligeena qof khibrad gaar ah u leh dawladnimo laguma jirin laakiin haddana waa la dadaalay falillahi alhamdu bani aadamka khalad iyo saxba waa leeyahay laakiin meel macna leh oo Soomaaliya isugu timiday yaa la isugu keenay waxyaabaha aan la yaabo